السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daawadayaal ku soo dhowaada tirsiga kan isaga ah ee cusub oo ku saabsan arrimaha Soomaaliya, gaar ahaan arrinka ku salaysan ama ku lug leh damaaciga Itoobiya ama Xabashida ee ciidda iyo badda Soomaaliyeed. arrinkaas oo ah arrinka maanta bulshada Soomaaliyeed horyaal oo ah arrin lama huraan ay tahay ilaa inta meel lagu hubsanayo in soo qaadistiisa iyo u howlgalkiisa meel la saaro. tirsiga kan isaga ah waxaan hor istaagayaa iyadoo loo jeedo muuqaal la yaab leh kuna lug leh dadka lagu sheego culimmada Soomaaliyeed. waan ku adkaysanaya arigaas isaga ah dadka lagu sheego culimmada Soomaaliyeed, taasoo far weynay ku godan tahay. had iyo jeer waxaan aragnaa iyagoo u ololeynaya u howlgelaya ololayaal mararka qaarkood la oran karo in laga yaqiiqsoodo oo ku howlan dhacdooyin maalmeed fasahaad ku saabsan, balse qaabka ay u booninayaan iyo majaraha ay u yeelayaan dhacdooyinkaas iyaga ah ee maalmeedka ah oo weligoodba ahaa arrimo soo jireena ilaa xilligii islaamku bilaabmay, waa wax macnihii maanka ka yaabiya. marar badan qof baa halkana saa u hadlay, qof baa heesay, qof baa isqaawiyey, arrimo aan macnihii marka loo barbar dhigo danaha iyo dhibaatooyinka horyaal bulshada Soomaaliyeed ama ku habsaday gelaya inaanay wax ka soo qaad lahayn, oo ahamiyadda ilaa heerkaa weyn ay mudan tahay in arrimaha masiiriga ah ama danta guud ee Soomaaliyeed ama sidii loola falgeli lahaa dhibaatada guud ee Soomaaliyeed in laga shaqeyn lahaa. waa habeenkii xalay oo tegay in laga helo, balse dhaqankoodu uu u badan yahay inay dhacdooyinkaas iyaga ah ee yaryar ee minorka ah ku wareegaan. taasna waxay muujinaysaa inay iyagu yihiin macnihii dhicis minor, aanay himiladoodu saa u weyneyn. warkii oo kooban, in laga hortago mashruuca kan isaga ah ee ku salaysan duulimaadka ee deriskeenna xume ee Itoobiyaanka ee Xabashiga ay wadaan ilaa iyo hadda kama naasacadda, ma muuqato in dadkaa lagu sheegayo wadaadada ama culimada inay u howlgaleen oo u ololeeyeen sidaan tilmaamay ee marar badan dhacdooyin aan ka soo qaad weyn lahayn ay ugu ololeeyaan, ama ay ugu ololeeyaan arrimaha qaarkood oo islaamka la xidhiidha, sida duulaanka yahuuddu ama Israa'iil ku hayso shacabka Falastiin, gaar ahaan Gaza. arrinkaas isaga aad bay ugu howlgaleen, dankay noqotoba ha noqotee, balse arrinkii bulshadooda sida tooska ah u saameynayay waa yaag iyo ama kaag
in ilaa maanta laga la-yahay inay bulshadii howlgeliyaan oo u ololeeyaan ka hortagga khatarta weyn iyo duulaankaas bulshada Soomaaliyeed lagu soo qaaday. waxaan xusuusanaa aan dib u noqonno daawadayaal in 2007 markii dowladda Itoobiya ay dariskeena xun dalkeena kusoo duuleen in xoogaggaas iyaga ay tilmaaman ee bulshada Soomaaliyeed u howlgeliyeen sidii looga hortagi lahaa. arrinkaas isaga waxaa ku jabnaa xilligaas iyaga ah xoogaggaas iyaga ee wadaadada ah waxay u arkayeen in duulimaadka Itoobiya ee Soomaaliya ku soo qaaday inuu yahay duulimaad iyaga lagu soo qaaday, gaar ahaan taliskii maxaakiimtooda. saas ayay aragtidoodu ahayd, waana arrinkii ka keenay inay bulshada Soomaaliyeed howlgeliyaan sidii looga hortagi lahaa duulimaadkii Itoobiya. duulaankaasoo ku socday iyaga si gaara. warkii oo kooban iyo dulucdii iyo micnihii wuxuu ahaa arrinku inay naftooda difaacayeen, balse markay timaado danta guud ee Soomaaliyeed iyo himilada Soomaaliyeed ee xisaab iyo inay turubka gadaalka baandheeyaan galaan oo arkaan iyaga maxaa ugu jira, iyaga maxaa ka dhacaya oo khasaaro ugu jira. arrinkaas isaga ah bulshada Soomaaliyeed waxaa looga baahan yahay inay fahmaan oo milicsadaan. beerlaxawsiga ee had iyo jeer ku hayaan ma fahmaan halkuu salka ku hayo iyo dulucda warkooda iyo ujeedooyinkooda guracan. qaarkood saan fahmay waxay ku marmarsoonayaan weli lagama hayo xukuumadda Soomaaliyeed wax micnihii green light ah oo bulshada loogu kiciyo, lagu howlgeliyo. aanu arrinku noqonayo hadday arrinkaas isaga ah maanta u howlgalaan, la falgalaan, mid ay micnihii kaga hormareen xilligiisii oo dhibaatadiisa leh. mar labaad baan idin xusuusinayaa 2007 ciday ka qaateen micnihii oggolaansho ma jirin. tusaale, xukuumaddii Soomaaliyeed ee xilligaas iyada ah jirtay haba noqoto mid dabadhilif u ahayd maamulkii Cabdillaahi Yuusuf Axmed, inuu dabadhilif u ahaa Itoobiya, balse xukuumad jirta oo Soomaalida matasha bay ahayd. arrinkuna ahaa cadaawaddii iyo isku dhacii labada dhinac u dhaxeeyey. intaas aanu dhaafsiisnayn, balse arrinku ahaa inay danahooda iyo jiritaankooda gaarka ah saan tilmaamay difaacayeen oo sugayeen. balse maanta markay taagan tahay jiritaankii ummadda Soomaaliyeed, arrinkoodu ku dambeeyey inuu noqdo mid gala xisaabaad gaar ah oo halkii looga baahnaa inay bulshada Soomaaliyeed horkacaan, horboodaan, u ololeeyaan, iyadoo la garanayo nuxurka iyo micnaha duulaankaasu ku fadhiyo, aanna cidna looga baahnayn inuu oggolaansho kaga taliyo ka qaybgalka hawshaas iyada ah, hadday noqoto dowlad iyo hadday noqoto cid kaleba. nasiib darro noqotay iyagii inay marmarsiya doontaan
halkii looga baahnaa inay galaan kaalinta horseedka iyo haldoornimada Soomaaliyeed. Arrinkaasi isaga ah daawadayaal iga qora, waana u joognaa, waana arki doonnaa halkuu ku dambayn doono iyo inuu muuqaalkoodu dhabta ah arrinkaas isaga ah iyo duulaankaas isaga ah iyo gaabiskooda la saan qaaday uu boodhka ka jafi doono. waa anigoo ah Khaalid Xasan Yuusuf. intaan ku kulmi doono barnaamij kale, iga guddooma salaanta islaamka. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.